qoysaska dadkii muslimiinta ee lagu laayay labada masjid ee dalka New Zealand jimcihii aynu ka soo gudubnay waxa ay bilaabeen inay aasaan kuwii ay jeclaayeen ee ninka cunsuriga uu ka laayay. waxaa la aasay maanta oo Arbaca ugu yaraan 5 qof oo ciidamada ammaanka dalkaasi ay fasaxeen aas in loo sameeyo. dadkan ayaa waxaa markaasi lagu aasay meel ay dawladdu ay u asteysay muslimiinta inay dadka ka dhinta ay ku aastaan oo magaalada Christchurch ku taala. dadka la aasay maanta waxaa ka mid ah 15 jir qaxooti Syrian ah iyo aabihiisa oo markaasi ka mid noqday 51 qof oo ku dhintay toogasho laba masjid ka dhacday dalka New Zealand. wiil 15 sano jir ah oo Hamza Mustafa lagu magacaabi jiray iyo aabihii Khalid oo 44 sano jir ahaa oo labaduba dalka New Zealand tagay 6 bilood ka hor inta aan la dilin ayaa la aasay. Hamza walaalkiisa ka yar oo 13 sano jir ah oo isna dhaawac lugaha ay ka soo gaareen ayaa la arkay isagoo ku socda kursiga dadka curyaanada oo ka qayb galaya aaska walaalkiisa ka weyn iyo aabihiisa. sidoo kale dadka la aasay waxaa ka mid ah Junayd Ismaaciil oo 36 sano jir ahaa iyo Ashraf Ali oo 58 sano jir ahaa kuwa oo laba meel oo kala duwan lagu aasay. qofka shanaad oo aan magaciisa la sheegin ayaa sidoo kale aas loo sameeyay waxaana ka qayb galay dadyow kala duwan iyo madaxda sarsare ee dalka New Zealand. dad badan oo barooranaya ayaa goobta tagay oo u muujiyay muslimiinta midnimo iyo inay ka xun yihiin wixii ku dhacay, waxaana toogashadii ka dhacday dalkaasi lagu tilmaamay midii ugu xumay taariikhda wadankaasi soo marta. waxaa weli markaasi aan la aasin dad badan oo muslimiina oo ay ka mid yihiin kuwa asal ahaan Soomaali ay yihiin. wiil yar oo 3 sano jir ahaa oo Mucaad Ibraahim lagu magacaabi jiray oo Soomaaliya ayaa la xaqiijiyay in uu ka mid ahaa dadkii la xasuuqay. ra'iisul wasaaraha dalka New Zealand Jacinda Ardern waxa ay xaqiijisay in weerarkaasi uu ahaa mid argagixiso oo si markaasi heer sare loo soo agaasimay. ninka weerarka fuliyay oo dalka Australia ka soo jeeda ayaa ku jira gacanta ciidamada ammaanka. dhowaan ayaa maxkamad la soo taagay, xukunkiisana waxaa dib loo dhigay bisha soo socota. shacabka wadanka New Zealand iyo markaasi madaxdooda ayaa sheegay in weerarkaasi uu yahay mid bahalnimo oo ka dhan ah midnimada iyo wadajirka shacabka wadankaasi. ra'iisul wasaaraha wadanka New Zealand waxa ay ballan qaaday in ciqaab adag la marsiin doono ninka markaasi dadka muslimiinta laayay. ninkan ayaa waxaa lagu yaqaanay inuu markaasi ahaa nin cunsuri ah oo nacaybka muslimiinta ku beernaa. muddo 2 sano ayuu diyaarinayay weerarka ka dhacay dalka New Zealand. waxa uu adeegsaday qori nooca darandooriga u dhaca oo afka hore kaamiro kaga xiray si uu si toos ah bartiisa Facebooka dilkaasi uga tabiyo. 2 masjid oo mid ka mid ah Al-Nur lagu magacaabo ayuu weerarka ugu horeeyay ka fuliyay. 41 qof ayuuna halkaasi ku dilay oo 3 ka mid ah Soomaali ay ahaayeen. dhacdadaasi caalamka oo dhan ayaa cambaareeyay, waxaana hadda markaasi heegan sare la geliyay goobaha muslimiintu ay ku cibaadaystaan wadamada reer galbeedka, iyadoo la xiray hadda dhammaan masaajidii ku yaalay dalka New Zealand. cabsi laga qabo inay jirto shabakad isku xiran oo islaam nacaybka uu ku beeran yahay oo doonaya inay weeraro kale dadka muslimiinta ay ku qaadaan. xogayaha arrimaha dibadda dalka Mareykanka Mike Pompeo oo ku sugan wadanka Kuwait waxa uu ugu baaqay hogaamiyaasha dalalka Khaliijka inay xal ka gaaraan khilaafka diblomaasiyadeed ee u dhaxeeya. waxa uu shir jaraa'id la qabtay dhigiisa dalka Kuwait iyagoo ka wada hadlay xaaladda gobolka bariga dhexe iyo xiisadda u dhaxaysa dalalka Khaliijka Carabta. Mike Pompeo waxa uu sheegay inaysan dani ugu jirin wadamada gobolkaasi colaadda u dhaxaysa inay sii socoto, waxaana ugu baaqay in si degdeg ah arrintaasi loo xalliyo isla markaana loo soo celiyo wada shaqayntii iyo wadajirkii dalalka Khaliijka Carabta oo kala irdhoobay bishii Juun 2017.
mike pompeo waxa uu dhinaca kala sheegay in dowladda maraykanka ay qayb ka qaadan doonto dhexdhexaadinta dalalka khaliijka carabta. waxa uu tagay dalka kuwait oo ka mid ah dalalka dhexdhexaadinta waday, waxaana wasiirka arrimaha dibadda dalka kuwait uu sheegay in maraykanka looga baahan yahay inuu ku cadaadiyo dalalka gobolkaasi sidii ay u aqbali lahaayeen wadahadallo toos ah inay yeeshaan oo arrinta ka dhexaysa ay uga wada hadlayaan. sacuudiga iyo xulafadiisa oo imaaraadka iyo baxreyn iyo masar ay ka mid yihiin ayaa cunaqabateyn kusoo rogay dalka qatar, iyagoo ku eedeeyey dalkaasi inuu argagixisada caalamka uu taageero lacageed siiyo, laakiinse xukuumadda dooxa ayaa eedeyntaasi beenisay. sacuudiga iyo markaasi dalalka isbahaysiga khaliijka carabta waxa ay ka saareen dalka qatar xubinnimadii ururka iskaashiga khaliijka carabta oo markaasi ahaa urur xoogan oo gobolkaasi ka dhisan, waxaana ay kusoo rogeen wadanka qatar cunaqabateyn iyo xayiraado dhinaca cirka, dhulka iyo badda, taa oo saameyn xoogan ku yeelatay dhaqaalihii iyo isku socodkii wadankaasi yar ee qatar. waxaana hadda markaasi soconaysa dadaallo xoogan inkastoo wax guulaha laga gaarin, laakiinse maraykanka oo saaxiibo dhowlaha sacuudiga ayaa isku daya inuu ka dhaadhiciyo imaaraadka iyo sacuudiga inay aqbalaan dhexdhexaadinta socota ee wadahadallada ah ee lagu doonayo in weli waxaad la socotaan barnaamijka wardoon oo qaybihiisii dhexe aynu soo gaarnay. dalalka Mozambique iyo Zimbabwe waxaa dhowaan ku dhuftay fatahaado iyo duufaano iswatay oo ku dhintay in ka badan 1,000 qof, iyadoo markaasina weli burburka hoostiisa laga raadinayo midad hor leh. dhinaca kalena markii ugu horeysay ayaa gargaarka bini'aadanimada waxaa la gaarsiiyey goobaha ay fatahaadaha ay ku dhufteen ee dalkaasi Mozambique. dowladda maraykankana waxa ay ku dhawaaqday in 3 bilyan oo dollarka maraykanka ay siin doonto dalalkaasi si ay wax uga qabtaan dhibaatooyinka ka soo gaaray fatahaada. dalka markaasi Mozambique waxaa ku dhintay in ka badan 1,000 qof 3 maalmood oo baroor diiqa ayay dowladdu ku dhawaaqday kadib markii duufaanta Idaya ay cagta marisay qaybo ka tirsan wadankaasi Mozambique. sidoo kale fatahaado xoogan ayaa dalka Zimbabwe laga soo sheegay. gargaarka bini'aadanimo ayaa waxa uu ahaa mid aad u adag in la gaarsiiyo deegaanada markaasi fatahaadu ay ka dhacday. dalka Zimbabwe-na waxaa markaasi ay sheegeen saraakiisha in dhimashadu hadda ay marayso 98 qof, waxaana laga yaabaa in 100 qof oo kale markaasi la helo meedadkooda maadaama gurmadka uu weli soconayo. in ka badan 2,600,000 oo qof oo guud ahaan koonfurta bari ee dalalka dhaca Afrikada galbeed ayaa saameyn xoogan uu ku yeeshay fatahaada iyo cimilada markaasi aadka u adag ee ka jira wadamadaasi. intaas ayaan khiyaaray guud ahaan barnaamijkii wardoon ku saafmeeraya. intaan mar kale hawada dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa